عليكم مقعيقة وحال دها صفية علي كسو دواذا channel كيدا يوتيوب أو صفية علي هدو إلهي يراهدو وحان كواذا هالي دونا هدا هدو إلهي يراهدو on channel كان أفري محالة دها family the problem كان هيستو familiyasho waxbarashada haduu ilaahay yiraahdo iyo sidaan inaan horumar ku gaari lahayn haduu ilaahay yiraahdo ayaan jeclahay inaan ila share gareeyo wixii aqoonteyda ah iyo wixii aan iska faa'iidi doono idinkana waxaan jeclahay waxaad maxaa la dhahaa aad igu caawin kartaan inaa igu caawisaan oo waxbarasho haduu ilaahay yiraahdo anna waxaan igu caawin karaa inaan igu caawiyo insha Allah horta waxbarashada waa muhiim aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxbarashada waxay muhiim u tahay gurigaaga ilmahaaga hadaad ilmo leedahayna ilmahaaga adiga mustaqbalka ilmahaaga dumar iyo ragbo wax alla waxaan nahay wiil iyo gabar everybody waxa way waxbarashada aad iyo aad ayay u fiican tahay marka insha Allah waxbarashadan waxay ugu fiican tahay maxaa la dhahaa knowledge-gaaga hadaad waxbarasho taqaanid oo sida wax loo qoro sida wax loo aqriyo aad taqaanid ama af Soomaali hada ama English hada any kind of language meeshaad ku nooshahay waxbarashadeeda hadaad aad wax baratid horumar ayaa gaaraysaa laakiin hadaad dhahdid waxba ma gurigan joogaya oo sida cunto loo kariyo iyo sida guriga loo haaqo kaliya ayaan baranayaa taa wax maxaa la dhahaa aad horumar ku gaaraysaa maahan waxa hoos noo dhigay Soomaali hadaan nahayna waxbarashada aad iskaga mixil saarno waxaana aan waxbarashada aad u xil saarin ilmaheena aad u xil saarin waxbarashadooda adiga nafsadaada u weynaadan waxbarashadaadan aadan kor u qaadaynin because aniga kula hadlaayo waalidkuma soo kor hooyada iyo aabahay ma soo korsan aniga waxaan ku soo koray family kore marka waxa ilmo badan oo waxa jiro family badan ku soo koray marka dadka isku mid ma ahan dadna ilmaha aysan dhalin sida ilmahooda ay dhaleen ay uga fikiraan kuwa kalena waxa waay hadee gabar waaye gurigun beenoo haaqaysaa weelkun beenoo dhaqaysaa baa la leeyahay marka yaana war badan igu daalinina waxa waay waxbarashada aad ayay muhiim u tahay ama ilmaha adiga dhal ama ilmo oo eeda u tahay ilmo adeer u tahay ilmo abti u tahay ilmo habriir u tahay ilmo ayeeyo u tahay any kind ilmo aad haysid iyo adiga nafsadaada ahaanba inaa wax baratid aad iyo aad ayay muhiim u tahay because doctor ayaa u baahan tahay ilmahaaga doctor u baahan maxaa la dhahaa qof waayeel aha ama kuwa xariiro doctor u baahan ma turjubaan raadsanaysa ma qof kala baraysa laakiin hadaad 1 hour hal saac hadaa wax barasho gashid aad iyo aad ayay muhiim kuugu tahay ay kuna faa'iideysa adigana aad ku faa'iideysa ilmahaagana ay kaaga faa'iidaan because ilmihii markaad homework-gooda aadan ka caawin karin aadan maxaa la dhahaa wax caawinaad aadan u qaban karin aad iyo aad ayay dhibaato u tahay qof kale aad rely garaysid ama ninkaaga wax yaqaan adiga wax ma taqaan asaga wax ka baran karta odagaaga kula joog ilmahaaga aabahood haduu wax barashada uu kugu dhaamo 30 minutes ayaa la qaadan kartaa aadi karta maxaa la dhahaa hadaad ilmo yar oo ka tagi karin aad haysato laakiin aniga waxaan dhihi lahaa ilmaha yar xataa ilmaha markaas dhasha xataa waa laga tagi karaa 1 hour kaliya waad ka tagi kartaa because waxbarashada aad iyo aad ayay muhiim u tahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay adigay muhiim ku tahay ilmahaaga muhiim u tahay future-kaaga muhiim u tahay ilmahaaga future-kooda ayay muhiim u tahay okay ilmihi saaki waan ka tagay waxbarashaan aaday waxbarashada iska aado hada iskuul iska dhex fadhiisanaana ma ahan ma baxda iskuulkii ma tagtay waa inaa wax baratid wixii lagu dhigay waa inaad ka faa'iid inta time-ka ay haysatid ama 1 saac hayso ama 6 saac hayso waa inaad ka faa'iideysatid
dadka badankood hadda North America joogo ama wadamadan shisheeyo dhan joogo waxbarashada waa free aad iyo aad ayay free noogu tahay waxbarashada haddaan qaxooti joognana qaxootiga waa free marka aniga waxaan leeyahay Soomaali weyn meel walba aad joogtaan ama hooyo aho ama gabar aho ama wiil aho ama aabo aho waxbarashada muhiim waay waxbarashada aad iyo aad ayay u fiican tahay noloshaada ayay kor u qaadaysaa nolosha ilmahaaga kor u qaadaysaa future-kooda kor u qaadaysaa because ilmihii markay wax ku bartaan adiga oo hooyo ah oo adigana waxbarashadaada aad kor u soo qaadid waad is anfacaysiin ilmihii waad caawin kartaa laakiin markii ilmuhu homework uu leeyahay uu kula imaado ama su'aal ku weydiiyo ilaan hooyo tahay uu su'aal ku weydiiyo ku dhaw hadda hooyo maxaan maadkan ku solve gareeyaa oo problemkiisa muxuu yahay ama project aan leeyahay ilmaha project ay leeyihiin projectigan aan leeyahay aadan ka caawin karin taas dhibaatadeeda leedahay dhibaatada ugu weyn oo haysatana waa taas marka aniga waxaan dhihi lahaa Soomaali weyn ay isku duubnaado waxbarashadiina aad ugu dadaala waxbarashada muhiim ayay tahay ama weyno ama yaro waxbarasho yaraana ma leh weynaana ma leh okay waad baxday iskuulkii baad tagtay buug iyo qalin baa qaadatay maxaa soo faa'iideysatay ilmahaaga waad ka tagtoo saaka salaadaad ka kalahday maxaad soo faa'iideysatay isweydii waxa soo faa'iideysatay waqtigaaga ha iska dhuminin waan baxay iskuulaan aaday taa waxba kuma noqonayso maanta waxaan soo faa'iideystay laba eray ayaan soo faa'iideystay taasaa wax weyn ku ah adigoo maanta oo dhan maqnaa oo iskuul soo dhiganay because aniga kula hadlay iskuul baan dhigtaa dad badan oo iskuulka imaadaa jiro waxa waaye waxbarashadeeni ma ilaalinayno waqtigii aan gelinayna ma ilaalinayno waan iska sheekaysanayna imtixaan iyo wax markuu imaado miday ag fadhido ayaan ka qashaya aan leeyahay maxaa haysaa balkaan aan ka qortay dad waxbarasho ma ahan taa waa waqti dhumis markii lagu dhaho kaalinta soo istaag ama sabuuradan wax ku qor ama dadka wax u sheego la hadalo inta istaago dadka ardayda hortooda istaago macalinku wax ku weydiiyo kama jawaabi kartid ereygi sabuurada ku qor lagu dhahay kuma qori kartid imtixaankana qof kale aad ka fiirisay oo ka qoratay taa waxbarasho ma ahan waxbarasho waxa taqaano imtixaanka ku gal qof kale ha fiirin wixiisa qalad aha sax aha waxba kaama galin waa qofka waxbarashadiisa waa dhigi kartaa igu caawiyo maxaa waxaan ifahansii that is great idea ifahansii waa wax la gartay laakiin buug iyo qalin uu qof uu qortay inta ka qaadatid qoratid that is very bad ani dhila haduu ilaahay yiraahdo waxbarashadiina aad ugu waxbarta wallahi dad waxaan arkay 20 years 25 years oo halkan joogo on ABC da hadda baranaayo maxaa waqtiga iskaga dhuminaysa waxa waaye waa maalin walba ilaahay ku siiyo maalin walba waa gift ilaahay waxa uu tahay bari inaad gaaraysi in kal war uma haysid maalinta haysata jaaniskiisa ha iska dhumin ha ku ciyaarin jaaniskaaga waxbarashada muhiim ayay tahay waxbarta waxaana dhihi lahaa quraan ha noqoto af Soomaali ha noqoto English ha noqoto wax walba ha noqoto waqtigaaga 1 hour si ilmaha dad leedahay oo school dhigto 30 minutes lunchiga table kala tag la fadhiiso buugaagta yaryar ilmo waxa jira kindergarten oo buugaag yaryar la soo siiyo kindergarten-ka maxaa la dhaaf Soomaali maxaa lagu dhahaa I don't know af Soomaali taag kindergarten ku taqaano iyagu soo qor haduu ilaahay yiraahdo marka library-ga tag ilmaha library-ga u wada buugaag qaata
aqrista marka hadduu ilaahay yiraahdo waxbarashada muhiim waaye don't waste your timeka iska dhuminina 24 hours ayaa haysataa maalintii hadduu ilaahay ku gaarsiiyo markood seexanaysid waxaa ku fikirtaa bal maanta dhan maxaa qabsatay maxaa faa'iidaysata maanta waa inaad gool suubisatid goolka waxay tahay okay maanta waxaan qabsaday dantaan maanta soo dhamaystay ilmahaygan waxaas u faa'iidaystay anigaa faa'iidaystay adiga nafsad ahaantaada haddaa hooyo tahay inaad waqti isa siisa ayaa fiican waqtigaaga inaadan ku dhuminin telephone intaa qaadatid aad maanta dhan mid kalena iyadana waqtigeeda aad ka dhumisid adna aa waqtigaaga iska dhumisid waxaan idin lahaa Soomaaliya meel walba aad joogtaan noolaada insha Allah waxbarashadana aan ku dadaalno ilmaheena waxbarashadooda aan ku dadaalno annaka waxbarashadeena aan ku dadaalno waxbarashada waa cimli fiican knowledge ay ku siinaysaa hadduu ilaahay yiraahdo sidaa wax u fikiraysana fikirkaaga ayay waxay ku weynaysiinaysaa marka meel walba joogtaan waxaan ilaahay Soomaaliya noolaada khayr ayaan ii rajeynayaa aan ku soo dhawaada channelkayga Safiya Cali hadduu ilaahay yiraahdo YouTube ah mar walba waxaan jeclahay wax oo walaalahay anfacayo hadduu ilaahay yiraahdo inaan nila share gareeyo idinkana wixii knowledge aad haysataan oo ana ila share gareysaan hadduu ilaahay yiraahdo marka meel walba joogtaan waxaan ilaahay khayr ayaan ii rajeynayaa mar kale isku soo noqosho wacan hadduu ilaahay yiraahdo salaamu calaykum hello السلام عليكم magacayga waxa la dhahaa Safiyo ku soo dhawaada maxaa la dhahaa Safiyo channel keeda hadduu ilaahay yiraahdo why not شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا